السعودي oo deganaa markaas Madiina marka ciidanka Muuse Suudi iyo ciidanka Cabdi Qaybdiid iyo ciidanka Ismaacato oo isla socda ayuu General Caydi la dirirayay marka ma ogina taqaanada jidka xoosh ma taqaana jidkaas ayaa dagaalka horeydiisa uu ka socdaa Caydi wuxuu isleeyahay soo kormeero soo wada qabo korka soo meero wuxuu dhan nimanka ma ogyihiin waan niman iska qaana qofna kuma talagelin inay Caydi disho daabay qofna kuma talagelin asaga laakiin nasiib daro hogaamiye ma aha moogta inuu tago front hore dagaal qoriga liidaa tarantasta oo tarantasta waxaa laga wadaa 37 millimeter waaye dhinaciisa qorigaas oo laga soo riday dhinacaas oo Ismaan Caato iyo Cabdi Qaybdiid iyo Muuse Suudi ay ku midaysan yihiin qori ka soo dhacay Madiina qori ka soo dhacay ayaa Caydi meel u dhow ku dhacay oo dhagaxa faniinki ayaa dhinacaas midig ka galay ka gooyay ayaa marka hore waa sahashadeen xataa ayna looma sheegin laakiin anaa idaacadda ka sheegay inuu dhaawacay duqa ومانتا الشركة سكولها وعمل اي سرعان حتى حبات ايدو لو جيدو لغو لفتي اما لو وذي لغو لفتي ما اهين ويل كان الله دنبقي استردافه بريسه تاس بينو كشيغي انا بينينا يوحاسكيسا فررنا كمدعن كليدا ميدكتانا كما قلين بدحدا يهيد دبركا ويل ترينين برسن انا عيديد لي marka loo sheego meesha ka baxay xasan baris wuxuu yiri soo socday نسوا سعوات جو already marka date kana waa qalday date kana rabaa sax marka doqaynta odayaasha waxay dhacday July 1993 sarborada adduunka dhan ku qoran tan waxay dhacday October 1993 sideed guriga Cabdi Qaybdiid ee la duqay did ma soo socon waa tilmaamay marka taas Talyaaniga sheegay shirkadda dibashinta isku raaceen General Caydi Cabdullaahi wuxuu yiri wuxuu akii ugu horeeyay sabab ka dhaco ma ahayn wuxuu ahaa kii labaad oo dhaco oo November 1993 diyaaradda Cabdullaahi Yusuf inta shirki la tagay ayay gaalada waxay dhan Caydiida maqan yaa dooni kara la yiri Cabdullaahi Yusuf fartaagay baan salaamay guli Cabdi marka ka caasanay subscriber lagu masantahay madalku waxaan doonay yarkeena arinta Xasan Baris iyo Professor Ingiriis inta aan aqoonyahanahay runtii waxa baan mooran karo yani waxa farka ma karo laakiin runtii waxaan doonay aan kala yani seetahay runtii ninka Xasan Baris waxa uu ka hadlay sheegay Professor waxa uu sheegay Xasan waa nin oday waa nin daa waa nin weyn oo muddo soo joogay Xasan wuxuu leeyahay meesha ana joogay saasan wax dhacay Professor kuna asoo wuxuu hayaa taariikh loo sheego hayaa su'aashu waxay tahay markaa yani dawladda markii saxan Xasan baa saxan mise waxa saxan Professor Ingiriis يعني حالته waxay tahay markaa يعني هو واحد من كاوين واحد وحو كاوية marka dadku waxay leeyihiin Xasan madam oday yahay oo nin weyn yahay meesha uu joogay yani waxa laga yaabaa Xasan wax badan og yahay dadka qaar waxay leeyihiin ma yahay professorka xog ani marka talada waxay noqonaysaa marka hadii la rabo inta inuu soo gabagabeeyo in magaranaysaa labadooda dood loo qabto ila walaalihiin kusani Ingiriisu waxa sakeen odayaasha sakeen meel wada fariisto في اللي كان الضوء عارف أنا قلت مثلاً أقول سويدارس قلت الضوء مركها هذا حصل بيه كلمة واحد مكان مهمة حسن من مثلاً سوي حين مركها عديمه وهي أصلا ممكنه لكن واحد يدرس كله وعلوات رنتي وحنا دوّن كذي كابتن أيوب هو كشي كيوري هذا خبر بوحي حسن داروس وحي عن طودنا وحي كديد صوته حلو من يوم ما تبيه وانتهي أنا حليها متشوين هذا مركع بروفيسور إنجليز ونير halkan ka salaamaya runtii maalin wax ku aragtay abshir dusha aan maraya jooga runtii Professor Ingiriis wato waan waniir waan doonaya laakiin taariikhdu haya wax uu qoro wax uu aqriyay Professor waxa laga yaabaa information uu haysto dadku wuxuu sheegay inaysan waqtiga joogin ama ay joogeenba laakiin Xasan uu isagu leeyahay markaan waxaan wariyaa BBC meesha ay joogay aan la joognaa عادي واحد عفير حنا عسوليه marka adiga runtii daawanay waxaan leeyahay bal fikirka soo dhiibo labadooda yaa saxan Xasan baa kula saxan wax ku saxan Professor Ingiriis
midda kalena ma kula tahay in labadaas nin dood loo qabto dood inaysan loo qabto sababto waxay tahay yacni si runta loo ogaado xaqiiqada u soo baxdo waxaa ugu talinayaa marwada cadid way nooshahay iyadana in la keeno dood weyn la qabto la wada doodo waayo taariikhda runta ummadda u baahan runta ummaddan taariikhda way baahan tahay runtii maanta waxaan nabilaa taariikhan nahay runtii burburkii markuu dhacay wixii runtii waa la baabi'iyey marka taariikh waa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay xitaa marka يعني إن دور لقطة مثل دور يعني علميات لا يسوق أي بيولا الله فريستو إن أبوان كذا كانوا حسن بريس الله كانوا بروفيسور كذا كانوا لو فريستو دودا نقطة مركانات إنك سووا حاجة بنان كانوا تاسم قتلنا يا إن تذكر أنت كالي فرنسا يا قبيلة وحسن مو في عنه لو أنت قف مر أنت ذاك بقيو قف أقول يعني وحفنسين هي أنت قبيلة وحسن ما هلا فقال لا سوى سنبو الله عادي أنا وقت سوى سنبو هلا أنا قبيل wax ka hadlay laakiin waxaan leeyahay baayo si xaqo wacdaato labada nin dood isku keen waxa la yiri fadal isku faaniya yani loo fardo fadal isku hayo isku faaniya farda banaanka isku keena si antan xaqada loo garto banaanka isku keeno dood hal qabto ingiriis la keeno xasan baris la keeno hal wada fariisto markaas cadaan yani xaqada saxda marka taasan leeyahay si qasab waxaan soo dhawaad maantiin marka hore wax ka codsanayaa سبسكرايب لو كل عبدي وانتي عشان سبسكرايب لايك وحي فكرة كوسا انتو كسنا لايك iyo comment igu reeb adiga inta wada daawanaya anta si kula muuqata si kula tahay wadaan ya kula saxan comment igu reeb insha Allah soo dhawaad maantiin